waana lowday baydhabo laga saaray 20 jir markaa wax ku yaala baydhabo ka baxaysa waa waajid iyo baydhabo dhexdooda halkaas la geeyay markii aan meesha tagnay waa meel madow waa kayn indhahan ku xidhnayn dabeetana waan kala qaaday mid 100 baa la geeyay dabeetana waan la qaaday gaari xilliga la idin qaadaya marka intee lig baa lidin marka waxaan joognaa waa isla 3 ku jirtaa 74 waxaan ku 6 Oktoobar bay ahayd 6 February tana waa 6 February 1983 waa same day maalinta la qabta maalintii way ku beeganta wala muuraha ilaahay marka saaka la qabtay waa caaw COVID 19 markaan la saaraya dabeetana dhowr gaari oo kala noo keeno odayaal iyo dad arkay marka dadka aragnay qaar baa anageena la soo saaray gaarigan soo areyn waana la kaxeeyay abtishkuro ilaa muqdisho lagu waday aan mar qoran la jooshin xitaa dadka weyn ku jira waayeelka aan kaadi la xitaa la isu taagay sidii loo dhaqaajiyay ma la dhaqaajiyo maxamed cali durraan buu ahaan filayaa nin kabtano in loo jiray filayaa ninka watay tiimka watay ina sheekh bashiir oo kale xidid baabay haayeen layna qofna u joojinay xarban lagu shubay way maan labaadii waxaan galay xamar dabeetana waxaana la kala qaybiyay marka annaga intaydii madaxda ahayd waxa la geeyay safaaradda Liibiya oo markaa Liibiya ka maqantoo laga saaray oo dawladda Maxamed Siyaad iyo Liibiya markaa isku kaceen safaaradda waa banaanta marka ma jeel baa laga dhigay halkaasaan la geedajiyay wax xabsi guri oo kale qoladii kalena godkii yaa la geeyay nabad sugidda xamar maantii baanu halkii joognay qaadiyo raashid baana loogu keenay habeenkii baana la qaaday waana lowday baydhabo laga saaray 20 jir markaa wax ku yaala baydhabo ka baxaysa waa waajid iyo baydhabo dhexdooda halkaas la geeyay markii aan meesha tagnay waa meel madow waa kayn indhahan ku xidhnayn dabeetana waan kala qaaday mid 100 baa la geeyay xariga waan laga furo qolka waan laga xidhay inta in leeg ayaa markaa muqdisho leed ku hayay halkaas waxa weeyaan de maalin baan joognay markaan soo galay maantii baan joognay habeenimada baan toos wada baxay toos baan waan xukumanay ismoogni halka adiga garan la adeego halkaas waxaan sidanaa ragayga xukunkii dhow xambaarsan 10 sanadood baan ku xukumanay meel maxkamad leed ku taagan ma jirto 20 jir oo 10 sanadood xarigan sidanaa oo detention qarandumis baan nahay badee waayo kacaanku xistaa u yeela ama ay u yeelaan qofkii marka aan kiis lagu cadeeyana aan jirin ay ogyihiin xadraawa la jooga ama gaariga la joogay dambi ma deegaanka ku leh saameeyna dhulkii ku leh wayna deegaanka qofkaas ku soo noqon uu ka xareysnaado 20 jir baan lagu 10 sanadood baan sidanaa anagu si isma ogin halkii baan la geeyay qolkii baan ku jiray qolkas 20 jiro khasnadahan lacagta la dhigto weeyday wax kala kuuguma tilmaami kara hatta dushiisa eegto gaari baa mari kara waa dushu waa sabad gidaarkiisa sabadu hadii albaabka dhulkii oo la jeexay oo may waa dhulkii waa la dhisay waa waxa weeyaan hal ilaa kan oo kale maqsinkan inuu ku jiro kale in la eeg buu dhulka ka xisay yahay laakiin se gidaarkiisa ballaaran gidaarkiisa shubkii haddaad xagga geyso gacantayda muu gaari jirin cirifkaas si qofka qodaan uga bixi kara ma bixi kartid dushana ma xasin gaari baa dul mara toos shubu saas caadiya marka gudihiisu waa shamiito wax qalab yaala ma jiraan masquul yar baa ku taarta baaldi baa ku jira biyaha saacad baa lagu furaya biyaha ka dhaasanaysa baaldigana godkaas iska saaraysa hadii kala bahalaha kaaga soo baxaya miiskiisu waa sibid kursigiisuna waa sibid okay waxa kale uu leeyahay kulayl marada yarad haysto isma saari kartid ilaahay ma dawx sabadii xiran yahay oo daaqadna xitaa lahayn kaneecada daaqadna xitaa ma leh yani waxa jirta daaqad yar oo xagga sare hore ah iyo albaabadan oo kala dambeeya marka albaabka laga furaya oo labada saacadood iyo saacado waxa lagu furay mooyee waxba furi jireen iyo marka dee cuntada lagu siinayo dabeeto waxay noo keeneen firaash yar oo gaaban oo lacagaha kala dhacayso oo ka samaysan xaskushii ma garanaysa markii loo jiray xiga geed buu xigu leeyahay haddii sida loo farsameeyo aad taqaano waa la qurmin jiray dabeetana xigaa laga saari jiray afkaa laga jiri jiray kaasoo la tumay waan xigiina iska yaala dhex ayaa gal la geliyay afkiina uu leeyahay ayaa gal yar afku mudmud xitaa ku yaala jiraa dadna cagaha kala dhacaysa waxa taa ka sii daran ma neef baa lagu gowracay baad islaa dishiisa mise qof baa lagu dilay
dhiig miidhan weeye gidaarka waxa ku wada qoran nimankii ku jiri jiray taariikhda ku jireen 78 till 80 intaasa adigu waxaad ku habeen baa leedin geeyay mise habeenimana la geeyey dabeetana markaa dee anigu waa in fact waan ka waaraysan rag kaloo labaatan jir waan aqaynay aad hore ugu booqatay mise ma lama booqdo laakiinse markaan militariga ahayn ayaan gandiyadooda waan aqaynay waqtiga la dhisay wixii soo dhamaan la socday ninkii soo furay baan ogaa oo ahaa ninkii militariga noqori jiray magaranaysa jananka aan ku sheegay Cismaan Saalax ayaa furay jeelka waxa sameeyay jarmarka bari dabeetana markuu siri noqo helicoptertii soo qaaday way qarxaday kii sameeyay jeelka kii de soo furay jeelka iyo intii la socday iyo technicianskii marka waxa la oran jiray inaan cidina ogaan ayaa la doonayaa loo khaarajay Cismaan Saalax baa jiray isagii wixii ogaaba halkaas ku dhintay dabeetana halkii baanu joognay markaan muddo joognay meeshu waa madow kutaabad akhristaa ma jirto dharkii maxuus yar iyo wax mooyintii kale waana laga qaaday marka waxaad ku barisatay waa 1986 February ilaa mala 10keedii meelahaas intaan sii soconay hadii la isu geeyo taariikhda way ka lumaysaa sigaar lagu siinaya ma jirto koob shaaha lagu keenayo subaxdii iyo xabad roodhiya qadadii in yaro bariisa oo isku dhajisan fiidkii ugu wanaagsanado in yaro digaah ayaa lagu keenaya labadii weegna marba in yaro hilib ah la siin jiray dabeeto anagu muddo saa ugu jira ayaa maalinta dambe albaabka isqadar xal lagu furay haddana marka in dad la keeno qolo loo baahday iyo inay yiraahdaan wariyana xabadda ku waalanay qaar isugu geeyay mooyee Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Bashiir oo ayaa la isu galiyay marka qolku uu imisa mitir imisa qof qolku waxa weeyaan de laba qof u qaadi kara laba qof way seexan karaan dabeeto sheekhi waan ka faa'iiday Sheekh Cabdiraxmaan inuu Hargeysa noo joogay isna wuxuu haystay maxkamadaha iyo raxbaanka ana dalxiiska haystay isna dalxiiska ayuu buu yaqaanay ana laakiin markii qolkii la soo kaay keenay wax badan ma ka faa'iiday nin asar ka soo baxay buu ahaa nin sheekh buu ahaa nin la yaqaan buu ahaa wax badan ayaan ka faa'iiday diinta aad baan uga faa'iiday dabeetana halkii baan ku jiray maalintii dambe waxa marka aan 10 ku jiraa waxaan nahay saan magacyadooda ku war sheego aniga Cabdikariim Xaaji Ducaale Cabdiraxmaan Sheekh Bashiir Nadiif Cajab علي حسن فارح عبد النور عبد النوح بن جدا عبد النوح هاي وحا سلب علي امان محمود بيحتار وله يا يوسف يا مارق يا قنب عبد الحاش marka nimanka dan titles kood ku kala sheego qambi wuxuu ahaa gudoomiyaha xiriirka shaqaalaha gobolada waqooyiga nadiif wuxuu ahaa isuduwihii wakaaladda horumarinta biyaha sulub cali amaan waqooyiga sulub cali amaan wuxuu ahaa isuduwihii beeraha cali xasan wuxuu ahaa isuduwihii cagafyada cabdi nuux wuxuu ahaa isuduwihii xanaanada xoolaha cabdikariim waa isuduwihii wasaaradda warfaafinta maxamuud bixtar wuxuu ahaa isuduwihii hawada sare iyo duulista allahumma salli ala maxamed يمارق وحها دم بباره CID ده وCID ده هيستا وحسي قيبت CID ده هيستي يا كلا هرسن إذا كنت تيجي وأنا شيخ بشير عبد الرحمن شيخ بشير وقرصوري محكمة درسنا يرفعنك ذلك يا أدوه هيستي قيبت الحيس كهيستي وكي جمش من كتيري اختبار نسك السوق هذا ناي dabeetana sidaan isuga jiifay markaa isma ogin habeenada ka mid ah ayaan hadalnay maalin baan hadlay soo meesha hadalka waa ka mamnuuc laakiin saan igmaan ogin oo markaa intee xidhnad ilaa intee baad xidhnad markaa dhowr bilood baan xidhanahay annagoo halkii jiifnaa qambi baa falay ayaa xanuunsaday wili war waan xanuunsanaya markaasna codkiisa garta sidee lagu hayaa baan ku odhi maxaa ku hayo isaga waan la hadla juulay maran albaabkaa la xidhay markaa albaabadaa noo furaa albaabka waa la soo xidhay oo iska tegey saqdii dhaxaa layla baxay إن الشيخ بشير ما كنت مركب كيلانست أيام ورك ليش مسؤول حتى كيلانست كت مثلا كل ورهداد كيلها الله يقربه والله يقرأ هذيك اللي ماشي قرأ اسمه شرط يكسونه مركب سور أوراق والله كحي تبتنو حلاقي حفيزك وحلقك وقعد مركب نكي تليها هنا هيستي وحلاقي نكون لا إيوه أسكر برد ودستته تبتنو كيس وصاو أجي
markaa wuxuu u qaatay inaan axmed saleemaan bidaahay saleemaan bidisho unbuu mooday tiyaatar markaasuu yidhi waan dooni mayno nin fanaana oo gawaaya oo heesaa inaanu garaacno meesha hadalku waa ka mamnuuc mar dambe hadli iska tag cajiib waan maxaan sameeyey hadal baan sameeyey hadalku waa mamnuuc hadalkaa mamnuucaba ha hadlina taga meesha adiga ku eko diiriyaa ninkaa la oran jiray oo korneel marreexaan u ahaa ninkaasuna abaalkaas u igalayo habeenkaa imuu garaacina waa lasoo waa magacaa kuu qaldamay weliba moogda halka lagu sixi doonaan ku sheegaya dabeed halkaygii baan ku jiray meeshu runtii argagax badan bay leedahay rasaas baa ka dhacda kaneecada marada afka masaari ka tabanaa ku sheega kuleelkaa jira gebigaaga miisaankaaga iyo waxaaga waxay noqonayaan cunto fiican heli maysid dee waxa loogu talagalay waxaa jiray markaa dad waxaa ku jira ina cumar carti qaalib iyo qolooyinkaasaa ku jira way ku sii xidhnaan waad ugu tagteen waan markaa ugu tagnay inamadan ufaan ugu tagnay waxaygaas oo dhan baa iska jira markaan muddo iska joognay ayuunbaa habeenna la soo baxa galabna loo yimi markiina loo yimi horta waxaan xasuustaa sigaarkii ubax markaa intaas sigaar maanu cabin sigaarna ma tusiyo xilligaa sigaarkaad cabi jirtay waan cabi jiray berigaa sigaarka markaas sigaar noo soo turmo sina sheekh bashiir guri inna maca alcusri yusra waxbaad dareenteen markaa markaasuu sigaarkii galabti baa soo baxa timaha ayaa naloo sii xeerxeera marka waa ilaa intay xidhnaydeen marka marka waxaanu xidhanay malaa ilaa about dhowr bilood baanu xidhanay maanu gaadhin sanadihii Ilaa sanad xadmidan gaadhin. maanu gaadhin laakiinse haddaadna aragto dee waxaan moodaa inaanu xidhanay dabeetana waa nala soo qaaday habeenkii baa lasoo intii nii wada socotay marka horeba tobankayagun baa lasoo qaaday markaan gaariga lasoo kaay keeno maan isgaran raggii wax maya dhinteen maya sidiina loo soo waday ayaa saddexdii habeenimo madaxtooyada nala soo geliyey maxamed saad baa naloo geeyey sigaar bensalon shito kiisii baa igu horreeyey oon qaatay ilama arag markan dambana wuxuu baa nala soo siiyey anina sheekh bashiir buu waryaadhaheen maxaa waxaa u samaysay adina sheekh bashiir baa ahaday taariikhdii sheekh bashiir buu ka sheekeeyey maadaa nin qaran dumis loo xidhaba waarma annagaan mas-uurta waan idin cafiyey bal dhegeysta oo fadhiista annagu markaa isma ogindii weli inaan xukumanay 10 sannadood baa ku xukumay waan idin cafiyey meel laydinku sheegay iyo maxkamad laydin horta ilaa maxamed siyaad afkiisaasaan ka hayaa hay in 10 sano laydinku xukumay toban nagu xukumo tobankii naga cafiyayo hay markaa ilmaad reer haddaad dembi gasheen oo nimanka raacdeenna kala maarmayne ka noqda haddaana idinku jirinna raalli ahaada basaan maxaad nagu xidha kelimad adigu maalintaa nagu yidhi wuxuu yidhi nin daad qaaday xunbo cuskay dal iyo dad baanu idiin dhiibnay idinkaa madax ka ahaa wixiiba way dhaqaaqeen yaanu xidhnaa haddaama islaamaya habraa haddaan aan idinka idin xidhin aad iyo aad dabeete waxaanu ku nidhi dumar iyo carruur baa dee dalka joogo labadaan adaa lagugu ogaayay hay maxaadna weydiinaysaa adigu iska dooddoodnay kii baa yidhi waa kan madaxweyne ina salaam bidihii tiyaatarka hay ninkii taliya ahaa sirdeeri naas warka naga naqaano magacaano waa dalxiiska oo walaalkii wiil ninkani diira sidii noloshiis maanu arag noolaa mooyi dhimaya laakiinse wax baa habeen kaa tiray dabeete maxamed siyaad wuxuu yidhi waan soo wada baxnay anaaba markaa ka odhi personally waa dharkan sidnoo ka naga daadanay waxaanoo sidnay kaale dee wax na sii raggan masaakiintii way kaa dhowrsanayaan markaasuu yidhi inaadeerkii baan idin geenayaa iska joog waxba haysoolinay markaa waxaan u qaatay inaadeerkii ismaaciil axmed inuu noo geynayo waayo ina cigaaliyo wixii la soo daayay halkaasaa la geyn jiray ismaaciil axmed oo markaa haystay asluubta ayaa asluubta walanama geynin Ismaaciil looma geynin waa gurigaan ku bartayna maxamed isxaad jire marka dambe dee kule halkaasaan ku saaxiibnimada ka bilaabantay dabeetana nalama geynin waa nala soo kaxeeyey waxaa naloo geeyey cabdi jaamac xayd ilaahay naxariis jannaha siiye ninkii hotel siinay lahaa ayaa nala geeyey ninkii baa hoteelkiina dejiyey halkii baa nagu hayay 2 bilood baan casuumad dadku noo kala saaray maanta jirdeena casuumaya maanta wasiir hebel bayna casuumay wax allaaliya wixii illa odaygana waa kan afkiisa idinka soo cafiyey isagana cafiyey cid waxay haystaan waxba uma baahanin horta dee nimankan aragga laga bedelo wey sidaan u egnaa bahalaan nahay waa dibadadayn baad u baahantii dibadadayn baan u baahnay 2 bilood baa xarafna lagu casuumayay oo allah u naxariistay cabdikariim oran jiray wuu mahadsan ninka maanta na casuumay ka birina casuumaya af maalaan nahay
saasaan horta jeelkayagii ku soo dhammaaday dabeetana waxaana la yidhi waqooyin ma tegi kartaan waqooyi mamnuuc baanu ka nahay dabeet halkaas waxaa dhigaas ku dhammaaday waa xabsiga ugu adkaa in la tago dalka lasoo maro waxaa soo maray intaan xasuusto ismaaciil alabakor way soo mareen iyo cumar carte iyo qoladaas way soo martay waxaa kale soo maray maxamed xaaji ibraahim cigaal oo isna muddo dheer ku soo jiray waxaa ku jiray nin shamsudiin la oran jiray maalintaan la sii daayey waxaa joogay nin qolo ninkii weerax la oran jiray majeerteene maaliyadda joogi jiray cabdilaahi warsame nin la oran jiray qoladaasna maalintaas nala soo daayey isla habeenka iyadana waxaa nala soo daaday ku xasuusinaya qamariye iyo muuse biixi weyna xerada militariga qamariyana isagu wuxuu ahaa qamariye waa nin militariga ah inaad dadkii la garanaysaan baa moodayaa rabaatii waxa weeye dad badan oo barnaamijka daawanaya waxa la isweydiinay maxamed cabdi baa leeyahay waa nin korneyl Hargeysa imika jooga waxa weeyaan ninkii wada jiray diyaaradii Shabeelleyda pilotkeedu buu ahaa muuse biixina wada shaqeyn jireen isku lot bay ahaayeen madaxweynaha Soomaaliland hadda muuse biixoode madaxweynaha Soomaaliland habeenkaas ayana la soo daayay oo isku habeen way xidhnaayeen militariga ku xidhnaayeen iyo qadiyadana ay xidhnaayeen habeenkaas ayana waa la soo daayay mar baan la soo daayay aad iyo aad inta hadalkeedu way inteenan soo gabagaban waraysiga waxaan jecelahay laba qodob inaad igu noqoto horta xadhigaagii horta xadhigii dee xadhig ka dambaysa laguma xidhin laakiin xadhigii 1975 baa soo maahay 74 qisadii cajiibka ahayd nimankii askatay ladina soo xidhay qalin yar haday waxaad iga sheekaysaa waxaa jirtay cabdishakuurow markaana la xidhay 1974 ina la xigay geeska ayaa maalintii markii aanu galaynay ayaa wax laga saarayay gaari qof la soo dilayo marka gabadh bay ahayd baa la yidhi marka anagu soo day waxaa kuwan marka halka ku xidhnaydeen waa xamar waa biyamundo marka jeel buu ahaa marka waa jeelka weyn oo centraalka la yidhaaho isaga qaybta rumaanka iyo qaybta marka biyamundo waa qaybta rumaanka qaybtan kale centraalina waa qaybta jeelka weyn marka qaybta weyn baa laga soo saaray qofka anana xaggana loo kaxeeyay qiimo badan nagu sameeyeen laakiin waxa sheekadu qiimo yeelatay mooy maalin ka bacdi iyo laba cisho ka bacdi waxa ahayd mooyay waxaan loo keenay 9 nin oo ciidana oo la soo xiray ma 9 nin 30 marka gabadhan waa la soo tooganay gabadhan waxay ahayd gabadh dishay gabadh military ahayd oo ay jeclayd u tuhuntay dishay gabadhii inuu guursaday iyo inay ku dareentay inuu hubay dishay marka in buug yana waa askariyad bahayd waxa laga qoran filayaa buug la heli doono oo jacayl ahaa gabadha ay gabadhu dishay dabeetana soo gabadha markii gaariga la saaray gabadhu way dishay inay mid ku dishay inay toogashay ma hasto laakiin se gabadhu way dishay dabeetana gabadha kiiska waa lagu helay waa lagu xukumay dil baa lagu xukumay dilkii waa la soo fulinayay basoo dabeetana waxa loo qaaday 9kii ciidankii tuuganayay qofka markaa geed baa lagu xiraa dabeetana 9 way jiifsadaan 30 way jiifsadaan 30na jilbahay dhigaan 30na korbay isu taagaan dabeetana 9ka xabaa lagu furaa dabeetana qofku saas ku dhintaa waxa jira waxa la koolbada garaats ee loo oran jiray xabada mahadnaq oo ninka taliyaha ciidanka wata madaxa ka toogan jiray maxabad ba mahadnaqa waa mahadnaq qurka goynu afku baa macaanayaan dabeetana waxa dhacday bariga soo nimankii markay tageen inantii markaa qofka iyo ciidanka tooganay inta badan gaari lama wada saaro gaariga la kala qaadi jiray laakiin se nasiib darro sidii sheekadu igu soo gaadhay gaariga la sii wada saaray marka nin ciidamada kamid oo noo sheekeynaya kamid ahaa markaa wuxuu intay gabadha qurux badnaa ahayd waana fuushanaad intii aan sii soconno dhan wala mudaabala dadka bayna wax ku noqotay in kala mooyay ay si qaadaa haystan ay qaad jirtay shankaroon ahayd ku cuduraan cadaba jirin indhaha cadceedo xabsi ka kaxeeyo halkaaga carre wax dabeetana waxa dhacday markay tageen askartii amar baa la siiyay toogta la yiri 9kii nin buu la waayay gabadhii haddana waa lagu celiyo toogta la yiri haddana waa 3 jeer markii ay ahayd ayuu kii madaxda ka ahaa madaxa ka toogtay dabeetana way dhimatay 9koodii baa la soo xiray oo gabadha ka dhax qeyraysa dabeetana habeenkii oo dhan qaad jiray jeelka heesta ahayd hadraawi ahayd cuduraan cadaba jiray maxamed ibraahim warsame waxay ka mid ahayd rawaadii aqoon iyo afgarad waxaana ku luuqeynayay shekaroon axmed sagal askarigu muu idinka sheekeeyay heestu siday u saameysay maxay heestu u saameysay way dareenkoodu bay bedeshay quruxdii iyo heestii iyo meeshii ku wadeen
ayuun bay isugu waayeen idna xabadii bay sortaay duraan cadaba jiro indhaha cadceedo cidla kaaga wehelo cabsi ka kaxeeyo bahalkala caraare aad iyo aad baan idin mahadinayaa aad iyo aad baad mahadsan tahay cabdilaahi silwaan bidde waxaa barnaamijkeedii la socodsiinaya aniga cabdishakuur maxamed muuse ah iyo maxamed jaamac dhiif oo isaguna barnaamijka duubayey intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu